الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Sheekh caalim ah oo la oran jiray Abu Yaziid ayaa maqlay habeen qeeladaan kuwa Kirishtan oo kaniisada ka dhex qeylinayo. Wuuna u dhex galay, wuxuuna dhex fadhiistay isagoo u maleynaya inaysan garan doonin. Baadarigii markuu hadal isiri ayuu arkay Sheekhii. Markaasuu wuxuu yidhi, ma hadlayo ilaa ay naga dhex saartaan ninka muslimka ah. Waxay weydiiyeen, sidee ku ogaatay inuu muslim yahay? Wuxuuna yidhi, muslimiinta wejigooda waxaa ku taala calaamada raadka sujuuda. Wuxuuna ka codsaday inuu baxo sheekha. Sheekhu wuxuu yidhi, ma baxayo ilaa uu Ilaahay ina kala saaro mooyaane. Baadarigii ayaa yidhi, haddaba haddii ay saas tahay, waxaan ku weydiinaynaa su'aalooyin. Haddii aad ka jawaabtid, diintayda ayaan raacaynaa. Haddii kalena soomaan, seef ayaa inaga dhexaysa. Sheekhii ayaa ku yidhi, soo daa su'aalahaaga, asigoo ku kalsoon in Ilaahay qofka muslimka ah xaqa waafajin doono. Baadariga wuxuu yidhi, waxaad ii sheegtaa hal aan 2 noqon, 2 aan 3 noqon, 3 aan 4 noqon, 4 aan 5 noqon, iyo 5 aan 6 noqon, iyo 6 7 aan noqon, 7 aan 8 noqon, 8 aan 9 noqon. Maxayse tahay 9ka mucjiso? Mase taqaanaa 10ka badan karto? Maxay yihiin 1 iyo 10ku? Muxuuse yahay? Sheeg noole wax aan nooleyn ee neefsada. 3 iyo 10 aan 4 iyo 10 noqon. Mase taqaanaa qabrigii la socday qofkiisii? Yaa waayo kuwa runta sheegay ee naarta galay, iyo kuwa been sheegay ee jannada galay? Mase taqaanaa uunka Rabbi abuuray aabi iyo hooyo la-aan? Mase taqaanaa geedka leh laamo, laan kasta 12 laamood, laan kastana ay leedahay 30 warqadood, warqad kastana leedahay 5 sabuul, 3 hooska ku baxa iyo 2 qoraxda ku baxda? Ka jawaab su'aalahaasi. Sheekhu wuu istaagay. Ilaahay buu weydiistay in carabkiisu xaqa ku toosiyo. Wuxuuna yidhi, waaxid aan 2 noqon waa Allah subxaanahu wa tacaala. 2 aan 3 noqon waa habeenkii iyo maalinkii. 3 aan 4 noqon waa afafkii qadar siiyey nabiyullaahi Muusa calayhi salaam. 4 aan 5 noqon waa Towreed iyo Injiil iyo Zabuur iyo Qur-aanka Kariimka ah. 5 aan 6 noqon waa 5 salaadood ee Ilaahay farad yeelay. 6 aan 7 noqon waa maalmihii uu Ilaahay adduunka ku abuuray. 7 aan 8 noqon waa 7 samo ee Rabbi abuuray. 8 aan 9 noqon waa malaa'igta Ilaahay carshiga Raxmaan hayso. 9ka mucjiso waa kuwii Rabbi siiyey Nabi Muuse calayhi salaam. 10ka badan karta waa ajarka camalka wanaagsan Rabbi uu siiyey bini aadamka, qofku rabana uu siyaadiyaa. 1 iyo 10ka waa wiilashii nabiyullaahi Yacquub calayhi salaam, Yuusuf walaalihii. 3 iyo 10ka waa Yuusuf walaalihii iyo labadiisa waalid. Noolaha aan neefsan waa subxii, wasubxi idaa tanafas. qabriga la socda qofkii ku jiray xoodkii laqay nabiyullaahi Yuunus calayhi salaam ayuu ahaa. Kuwa runta sheegay ee naarta galay waa Yuhuud iyo Kirishtan oo dhaheen midnaba kan kala xaq ma haysto. Kuwa beenta sheegay ee jannada galne waa ilmihii nabiyullaahi Yacquub calayhi salaam oo ay dhaheen aabahood Yuusuf waxaa cunay dhurwaa iyo waraabaa cunay. Kadib aabahood baa Ilaahay dembi dhaaf u weydiiyey. Rabbi wuxuu u dembi dhaafay. uunka Rabbi abuur subxaanahu wa tacaala aabii hooyo la-aan waa malaa'igta oo laga abuuray nuur, iyo aabaheen Aadam oo hooyo iyo aabba la-aan la abuuray. Geedka 12 laam leh waa sanadka oo ka kooban 12 bilood. bil kastana waxay leedahay 30 maalmood. Maalin walbana waxay leedahay 5 sabuul, yacni 5 salaadood ayaa loola jeedaa. Salaad walbana 2 waxay ku baxdaa qoraxda, 3 waxay ku baxdaa hooska, sida maqribkii, cishaha iyo salaada subax. Duhurkii casirkana qoraxda ayay ku baxaan. Kadib sheekhu wuxuu ku yidhi, baadarigii, aniga hal su'aal ma ku weydiin karaa? Isna wuxuu yidhi, haa, soo daa oo i weydii. Sheekhii baa yidhi, muxuu yahay jannada furaheedu? Baadarigii wuu wareeray, wuuna aamusay. Wuxuuna ku qayliyeen dadkii oo dhaheen, waxaad weydiisaa sheekha su'aalo fara badan. Dhammaantood wuu kaga jawaabay. Isna hal su'aal ayuu ku weydiiyey, mana ka jawaabi kartid.
baadarigii baa yidhi, jawaabtu waan aqaan, balse idinka ayaan idin cabsanayaa. Iyagu waxay dhaheen, waxba ha cabsan, ka jawaab su-aasha. Wuxuuna ku jawaabay jawaabta tan: jannada furaheedu waa laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah, ayuu yidhi. Waxay ogaadeen dadkii meeshii joogay diinta xaqa ah inay tahay diinta islaamka oo keliya, maadaama ay albaabka jannaha furihiisa ay ku qoran tahay kelmadda laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah. iyagii hal mar bay kaceen, dhammaantood waxay yidhaahdeen kelmadda tawxiidka laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah. baadarigii way iska eryeen, kiniisadina waxay u bedeleen masaajid ilaahay lagu caabudo. ilaahayow, toobad iyo tawxiidka na waafaji yaa rab. ilaahayow, in alaale inta maqalkaan maqashaa ay sii faafisaa, ilaahu jannada ka waraabi.